بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. horta waxaan ilaahay ka baryaa in ilaahay ramadaanta naga aqbalo bilbarakaysanaa lagu jiraa hadal tiro badan iyo wada hadal badan bisha ramadaan waa bil cibaado horta hore in la dhurmo la sheekeeyo wax qurxoon maahan laakiin waxaa jirto dhalinyaro badan iyo Soomaali badan oo su'aalo si gooniya ay si email ah igu soo qoraan marka maanta waxaan rabaa si live ah intiina soo jeedo kulli wadamo kala duwan kala joognaa qof wali meeshuu joogo intii soo jeedo kulli aan hadda la hadlo inta kalena kulli Facebook ku jira warka way arki doonaan waxaan rabaa barnaamij yar oo kooban oo la xiriiro waxaan leeyahay koriinshaha oo qolada markii caafimaad iyo waxa la baranayo yaa waxa leeyahay qofka markii dhakhtarnimo loo diyaarinayo waa inuu bartaa koriinshaha qofka bini aadamka innaga Soomaali hadaan nahane hadii qof kasto naga mid ah oo koriinshaha fahmo waxaan fahmi lahaynba meeshana laga jiro arinta naga qaldan waxay tahay waxa soo dhan gar lahayn marka waa barnaamij caafimaad ah laakiin meel kale aan u socdaa oo caafimaadka la ku daahimayo barnaamij kale aan idinka tusi rabaa waxa la yiri anigu yariska markuu dhasho caawa dhasho 18 inji wax ka fog waxba kama arki karo laakiin maqalkiisa wuxuu ka maqal weyn yahay leeyahay dadka waa weyn oo ilmaha yar waxa la dhashay maqalkoodu waa foorto laakiin araga ku gaaban markuu muddo jooga aniga oo ilaa bil gaaro waxa jirto wax loo yaqaan sas oo ilmaha markay yar yihiin way soo sasaan sasidaas ay soo sasayaan marka waxay calaamad u tahay leeyahay in central nervous system waxay dhahaan oo unugyada maskaxda iyo isku xirmooyo marka canuga ilaa 4 bil ka gaarayo uu sasaa uu soo boodaa uu sasaa hadii marka canuga soo 4 bil gaarin uu saska joojiyo oo maanta aan sararta jiifo waalidka waxay aqoonsanayaan canugan maskaxiyan ma koraayo 4 bil markuu gaaro ubadka marka xaliiri oo marka ilkaha soo baxayaan saskina uu joojinaa oo marka waxa dhisantay maskaxda canuga markay dhisanto 5 bil wuu celin karaa madaxiisa wuu celin karaa wax loo taaga alaabta soo qabsan karaa markuu 6 bil gaaro waad u bilaabi kartaa cunadii oo canugi cunadii wuu la qabsan karaa 7 bil waa soo yara adkaana fadhigii gurguuridkii oo bilaaba 8 bil markuu 3 maxaa la yiraahdaa sanad uu soo gaaro aan naqaanadaan Soomaaliya canuga sanad soo gaaro waxa waay wuu diyaarsan yahay canug ahaan la yiraahdaa canuga 3 jirka waxa la yiri waa canuga noolaha ugu maseerka badan oo qofka bini aadamka da'du doona ha jiro 3 jirka ugu maseer badan marka hadii 3 jir ku jooga aan maseerin caafimaad ahaan waxba u dhiman marka horta ilmo la kama sheekay rabno ilaa ayay abkuwan gaar rabnaa hayga degdeganina waxaan diidanaa inaan meesha aan u socdo hore uga boodo marka waxaan rabaa inay ila fahmi kartaan da' kasto si marka qofka ala macaamileeda inta waxba u sheegin ama aad wax ka dhageysan horta da'diisa aad fiirinay da'diisa marka fiiridana heerka koriinshaha ma kamid tahay da'daas inaad ku fiiriso marka canuga markuu 3 jir yahay waa noolaha ugu maseerka badan oo hooyooyinka qaar waxaan ku aragnay canuga 3 jirka canuga da'da ka yara xataa way u dhiibaan haya la yiraahdo hadaan loo dhiibin qaar waxa la arkaa barkin inta wajiga ka saaray ku fariista canugi 4 jir markuu soo gaaro canugu waxa uu garan karaa lab iyo dhadig ama nin iyo naag wuxuu yahay dadkana uu yaqaana gabar wixii aan uu fahmi karaa wiil wixii aan uu fahmi karaa laakiin 4 jirka waxa calaamad u ah haduu wiil yahayna hooyadu ku bataa haday gabar tahayna aabahay ku badana gabadha aaba wiilkana hooyo 5 jir markuu soo marka 4 jir waa marka aad fahansi karto waxa musqusha la yiraahdo oo 4 jir canuga waa inuu musqushiisa tagi karaa oo nasarta iska wasaqeyneen 5 jir markuu yimaado marka wiilku aabihiisu ku dhigaa gabadhuna hooyadeed oo gabar kasta hooyinay la joogay rabona marka marxalad kasta canuga uu ku jiro xeerka koriinshaha wax aanayna duu sameeynayo waxa cad koriinshihiisa inay wax ka qaldan yihiin ama qaab maskaxiina ama qaar jir ahaana 6 jir markuu soo gaaro waxa loo yaqaan da'da iskuulka oo qofku markuu 6 sano soo gaaro wax kasta la bari karaa alfabetiga la bari karaa
xuruuftii la bari karaa, numberaa la bari karaa, wax kasta la bari karaa. marka 6 jir ilaa 12 jir marka waxaa la yiraahdaa da'da waxbarashada. oo canuga marka 6 jir ilaa 12 maskaxdu waa nadiif, wixii lagu shubaa waa xilligay galeeda. waana marka qofka weyn la diyaarin rabo, nuuca laga dhigi rabo xilliga lagu shubo waayo. oo marka qofka 6 soo gaaro ilaa 12 waa da'da. haddana markuu 12 jir yahay waa xilliga hadduu wiil yahayna oo ugu ixtiraam badan yahay, hadday gabar tahana ay ugu ixtiraam badan tahay. oo qofka wiilka markuu 12 jir yahay gabdhaha xataa inuu la ciyaaro ma rabiyo, wuu isyara aruurinaa. gabadhana waa saas oo kale. laakiin 12 markii la gaaro gabadhu koriinshihii aan u bilaawdo macquula oo ay gabarnimadii u bilaabato. laakiin wiilka ilaa wuxuu gaaraa ilaa 18 ilaa 15 inuu wiilnimada ugu bilaabato. marka 18 iyo 40 waxaa la isku yiraahdaa dhalinyaro. 3 shay ka dhaxaysa marka qofka markuu 18 jiro ilaa 40. intaas oo jiro waxaa 3 shay u baahan yahay. wuxuu u baahan yahay inuu shaqaysto, xoolo korodhsado, inuu aqoon iyo wax fahan korodhsado, iyo inuu lamaane haday gabar tahana wiil ay hesho, hadduu wiil yahay oo gabar helo. haddii marka 18 iyo 40 da'diisa qofka uu ku jiro oo 3daas shaqo aan hayn oo haayo, oo shaqo 3da aan ahayn ku mashquulsan yahay, caafimaad ahaan oo jir ahaan ama maskaxiyan uu xanuunsan yahay. 40 iyo 65 waxaa la isku yiraahdaa ninka weyn. 40 iyo 65 shaqadiisa waxay tahay waayeel asaga dhalay inuu haayo, inuu caafimaadkooda ka shaqeeyo, inuu aasitaankooda ka shaqeeyo, in ubadka asaga oo dhalo iskuul u diristooda iyo nolol u diyaarintooda uu ka shaqeeyo. 65 markuu qofka soo gaaro, 65 soo gaaro waxaa waaye horta waxaa dhamaanayda nolosha uu soo diyaari jiray 65 wixii ka horeeyay. 65 markuu qofka soo gaaro saaxiibo cusub u bilaabanaydo, qaab cusub ee nololeeda u bilaabanayso. dadka uu yaqiin ma aha, dad cusub oo la saaxiiba. markuu dadka la saaxiibana shaqadiisana waxay tahay haddii marka ay waalidka dhalay ay joogaan, aasidoodii iyo geeridoodii iyo asxaabtiisa inuu aasi iyo bis mooye shaqo kale u taalla ma lahan, iyo inuu asaga isku diyaariyo geeri. horta marka waxaa garanaydaa da' kastoo qofka bini aadamka uu ku jiro sibay tahay inuu u noolaado, sibay tahay inuu u hadlo. haddii marka sida lagu yaqiin da'daas si aan ahayn ama qaanada ahayn oo qofka uu garaacayo, waxaa waaye isagina waa qaldan yahay, adigii dhagaysanaya ama u arkayo qof mas'uula ama qof ay aqoonyahana u arkay. haddii qaanada uu ku jiro da' aan ahayn iyo shaqo aan ahayn uu ka sheekaynayo, horta waxaad leedahay bal niyo iyo jooji filkaa igama gadmaayo. taa waa mid. maanta Soomaaliya kulligeen Soomaaliyana horta hore kulligeenna xataa gaal iyo muslim waxaa la isku raacay qofka dambi uusan gelin inaan loo ciqaabi karin. Soomaaliya hadaan hadda idin weydiiyo iraado war nin idin kamid ah ama gabar idin kamid ah dambi aysan gelin in loo ciqaabo diyaar muu tahay? waxaa la leeyahay meesha sharci kama jiro, sidee la igu ciqaabaa dambi aan ay gelin? hadday bastaa rab ay dhab ka tahay maxaan u maraynaa dambi aan anay gelin ciqaabtiisa? waayo inteenan hadda Facebook joogto nin naga mid ah ee dambiyada dagaalkii Soomaaliya ka dhaca kamid ah naguma jiro. nin maxaa la dhahay wax dhibaato geysta naguma jiro. haddana ciqaabti inteena marayno. marka waxaa jirto waxaan loo yaqaan technology iyo markii waa maxaa la yiraahdaa wireless kala sameeyay ya waxa laga bilaabay wax la yiraahdo 1G ama first generation oo wireless ka oo awood loo helay in banaanka inta la istaago cell phone ama mobile qof lagu wici karo idan fiilo kugu xiriirin. marka waxa la yiraahdaa 1G ama first generation of wireless. 2G muxuu noo sahlay inaan text message diri karno. 3G muxuu noo sahlay inaan browserka online ka tagi karno. 4G muxuu noo sahlay 4G wuxuu noo sahlay wax hadda aan joognay ah in video iyo wixii oo dhan hal meel la isku keeni karo. haddana markay ciriiri noqdo 4G maxaana laga dhaadhacsiiyay 5G aan u guureynaa. 5G-gana maxaa waaye waxaa la yiri frequency ama seeraha oo macluumaadkaas ku baxa ama fahankaas oo marayay wuxuu u dhaxeeyaa 306 frequency ama seero u dhaxeeya. marka si caqliga loo fogeeyo waxaa la yiri 5G aan tagaynaa si meel maskaxda inta ka weyn. annaga marka Soomaaliya hadaan nahay dhibteena si kasta aan soo tijaabinay. 1G aan ku tijaabinay, 2G, 3G, 4G, 5G aan ku tijaabinaa maanta. waan idin fahansiyaa waxaan ka wado. 5G aan ku tijaabinaa marka aan dhaheeno
shan qof ay u baahan tahay horta Soomaali dhibto ku jirto inay ka saarto qofka ugu horeeya maanta Soomaaliya badbaadi kara qofka lacagta leh qofka taajirka ah waa qofka taajirka waxa uu leeyahay saameyn oo maanta marka lacag leedahay ummadaada waa badbaadin kartaa haddaan weyna marka qof lacag leh oo Soomaaliya inta yiraahdo ruuxan ruwaayada hore aan iska dhaafnay nimayo lacagtayda in gelina baashi waan hagaajina qofka labaad in u baahanaa oon weyna ka second jiga ama 2 jiga u gudbeena oo qofka positionka noo haaya ee martabada noo joogo qofkaas la saameyn oo leeyahay wuxuu bedeli karaa sida aan u fakirno waa in mas'uul xil noo haaya waan kulligan kor fiirinayno waa 2 jiga waa marka qofka wuxuu badbaadin karaa haddaan weyno qof 2 jiga ee dantiisa ka badan tahay hal xaafad u kala kiciyo Soomaali wax u qaba haddaan weyno 3 jiga u gudbeena qofka saddexaad oo dadkeena aqoon-yahanka qofka aqoonta leh waayo qofka aqoonta leh waxay la mid tahay leeyahay dad dhul madow socda nin toosh sita waaye ee meesha u ifinay leeyahay halka ku dhicin halka ku dhicin marka qofkeena aqoonta leh hadduusan aqoontiisa ku xamaalay aysan ka ahayn wuxuu awoodaa inuu Soomaaliya hagaajiyo qofka afraad ama 4G-ga waxa waaye qofka way araga ee nala soo noolaa berigii Ingiriisna haystay nala soo noolaa berigii Talyaani joogay dawladihii oo dhan la soo joogay riwaayadahan hadda socdo dhan ka warqaba qofkaadna waa 4G oo marxaladda waa og yahay haddii markii ilbaxnimadiisa uu ka bedelo xaafadiina la kala kici oo ku fikir Soomaali ku hagaaji kaana wax uu qaba karaa marka first G ama second third four ama 4G aan weyne 5G na u gudubna waay 5G na yaa waay 5G waxa waa kulligeena waayo qofka shanaad ee Soomaaliya badbaadi karo waa xal leeyahay qofku u soo noolaaday wax ay dadka kale ka dhima lahaayeen oo maxaa kamid waxaan ka soo noolaanay dagaal sokeeye waxaan ka soo noolaanay abaaro waxaan ka soo noolaanay waxbarasho la'aan waxaan ka soo noolaanay waxyaabo adduunyada kale haduu ka dhaco ay isku bedel lahayd oo la soconi lahaa iyaan anaga inta nagu dhacdaan wilina noon shaarkeena noo cad yahay marka qof kasto ka soo noolaada leeyahay wax loo dhima jiray si kala kuugu dhiga hadii qof aad istaqaanaan adoo u jeedo 5 xabadood lagu dhufto madaxa loo geliyo la carartaan isbitaalka la geeyo ee markuu isbitaalka muddo ku jira soo socdo ka soo noqday ku yimaado qofka wuxuu noqonaa qof la dhageysto oo warkiisa la qadariyo marka kulligeen Soomaali hadaan nahay dah dhinaciisa kala tagnay wax laga dhima jiraan ka noolnahay marka inteenan kale 5G aan nahay 5th generation oo wireless ama ku fikirka aan nahay waayo ummadahan dawladaha dhistaan aan qatarta u malayno dadka jooga ee hogaaminayo dhibaato maysan aragno inaguse dhibaataan wada aragnay oo qof maanta xiiseynaa naguma jiro dhahayo waniyo baahida say u taalaa waniyo xabadaha say u yeelaan qof dhahay kulligan waxaan nahay survivor qof ka soo noolaaday wax loo dhima jiray marka afartan qof ee kan hantida haysto iyo kan booska haayo iyo kan aqoonta leh iyo ninkan way aragay 4G afarta iyagu mid fudan leeyahay iyagu waxaan leeyahay adduunyo ilaahay yaa ku siiyay ilaahay markuu na abuurayo wuxuu noo sheegay adduunyo ana idin damaanad qaaday oo haraadin adduunyo laakiin aakhiro raadso aakhirana raadiskeedii laguma dhin cidla ka raadiyo waxa lagu yiri wuxuu ilaahay ku siiyay aakhiro ku raadi marka hadduu ilaahay aqoon ku siiyay hadduu ilaahay hanti ku siiyay hadduu ilaahay position xil ku dhiibay ilaa xilku laskama helay ilaahay bixiye iyo hadduu ilaahay waa aragnimo aad u soo noolaato ku siiyay afartaas adduunyo kale ha ku raadineen horta aakhirada ku raadi oo way qofka aakhira fahma horta adduunyo fahmay laakiin qofka adduunyo la ku mashquulay adduunyo buriyaan adduunyadana way ka wareereen marka waxa jirta leeyahay wadaad dukaan leh yaa wuxuu sameeyay qashinka dukaankiisa markuu xaaqo iyo wuxuu ku ridaa box qaabkan cadaanka hadiyada u xiraan oo kale iyo calaamada hadiyada ku xiraa iridiisoo dhiga tuuga taqaana waa yimid tuuga arkay boxkii oo qaatay tuugna xagee ku fiiriyaan tuug markuu xado qashin qubku tagaa
tuugu waa la carari qashin qofkii u tagay waa furiyey waaba qashin meesha loo dhigay marka horta adduunyadu waa qashin waxaana xada tuug qashinka tuug leexado qofka markuu aakhire fahansan yahay horta adduunyadu wax weyn la noqon mayso ma ku fakiraya maantaan meesha joogtaay dadka lacag ka qaado waxaa dardari karta dardar oo waxaa jira wax la yiraahdo ganacsiga caqliga iyo ganacsiga jaahilka cadaankaana way qabaan oo waxay qabaan maqaayado la yiraahdo McDonald iyo waxaan yiraahdaa fast foodka ay dhahaan waxa arkayda qashin ay gadaan waxaan loo yaqaanaa ganacsiga jaahilka waayo maxay sameynayaan bulshada ayaga wax ka gadanaysay way dilooyaan laakiin whole food oo kale taa maxay sameeydaa cunno nadiif ah umada ka gadaa maxaa wadanta laga leeyahay marka qofkan hadaad disho ee maanta intuu haysta la aad ka qaadato iyo hadaad wax uusan haysan ku kalifta xataa inaad ka qaado laakiin aad noolaydo isagana wuu noolaana adigana wuu noolaaneen marka qofka maanta Soomaaliya raba inuu wax ka qabta hadduu wax uga qabto wax baabi adigana wax ka qabso isna sumcad ku yeelan maayo umadina kobci mayso nolosha fahmi mayso laakiin qof kasta maanta Soomaaliya damac ka gala ama xil inuu ka qabta rabo ama inuu ka shaqeysta rabo ama inuu ruwaayada ka sameeyo rabo waa inuu horta dadka uu kor soo qaada waxaan arkayay nin u tartamayay madaxweynenimo Soomaaliland iyo Mareykanka noogu yimid nimay qaraabiina marka wareystay wuxuu yiri niyahow hadaad madaxweynaha noqoto maxaad sameynaysaa wuxuu yiri hadaan noqdo yiri madaxweynaha waxaan shaqada siinayo dad aniga ka aqoon badan markaas inuu balaad dadka aqoon badan aad shaqada siiso armay ku dhacaan oo adiga meesha laga saara wuxuu yiri maye wixii la qabtaayo wanaaga wixii la qabtaayo xumaanayo yiri soo aniga fartali uma taagi lahayn marka wax wanaagan hadii la qabto yiri ana yeelanayo marka waxa la rabaa qofka in damaciisa uu ka fogaado wax hal maalin iyo hal sano iyo haddana internet hadda la helay wax kasta waa la record gareynayaa kelmad haday ka soo yeerto iyadoo qoran oo meel ku taalo awdaad soo helaan bariga hore cidaarta caay karta xarta sameey karta hadda sidii la rabo loo ma hadli karo hadda waa inaad yacni ku fikirtaa war 100 sano kadib ciyaalkan arki doono maxay masawiro naga qaadanayaan waxa kale oo jirto raggeena siyaasiyiinta madaxda oo dalka maamulaan meel kasta Soomaaliya Somaliland qof kasta Soomaaliya xil hayo wuxuu yiraahdaa dhalinyarada waxa tiin mustaqbalka dalka horta taa maanta madaxa ka saar dhalinyaradu mustaqbalka dalka maaha waa maanta waayo bariga hore mustaqbalka hadda fiiri xilliga asxaabti iyo xilliyada hore waxaa jira mustaqbal la saadaali jiray oo la dhihi jiray saasaa dhici doonto innagase mustaqbal la saadaalaya ma jira mustaqbalkiya noolnahay kana mustaqbalkiya maanta marka hadaan nin dhalinyaro Soomaaliya jooga aad tahay ee laga dhaadhacsi jiray mustaqbalkaad wax noqonay mustaqbal liman ma jiro mustaqbalku waa kan maanta mustaqbalkiya hadaad marka maanta istiraabal mustaqbalka u shaqeyso ed maanta silac ku noolaato wax mustaqbalkaaga insaan loo ahaana laakiin marka maanta tiraado war mustaqbalkiya kana maxaynu hagaajinaa waxa ku noqonaysa inaad ka fikirto tiraado dhibta Soomaaliya ka dhacda anay dambi kuma leeyahay maxaan ciqaabteedu maraa waay ana ciqaabtaas maraa waay maanta markaad qurbahan soo aragnay dhowr dalal badan adduunka midaan tagay dalal badan aan ku noolaaday dal kastoon tagay dal diyaarsano wuxuu canugiisa oo da'deena iyo wixii naga yarba ay nolol fiican haystaan wixii naga horreeyay Allah yarxamo annaga laakiin maanta aniga iyo inta naga weyn horta dalkaas xabba kuma lahan way yacni annaga teena waa soo dhamaatay baash hadda cidii qusayso waxa kaan hadda dhalan iyo kan aan hadda wali qaan gaarin ee waliba midka hadda isku maleeyno jaamacadda ka soo baxay inuu nolol sameeyo oniyo horta noloshaada waxay ku xiran tahay marka ku hadal la doono aan nolol u diyaarino waa inaan ka fikirnaa 2 jirada iyo 1 jirka iyo 3 jirka iyo nolol ay u baahan yihiin inaan diyaarino ka shaqeyno halka si lagu diyaari karana waxay tahay horta koow عشان الدنيا ترى بدنا نغيرها حق آخرة الله بديه واللي يرادو نمي هو باشا حق آخرة عن كفيرنه وحال يرادا مركو أنشح السرامر وقفك بني آدم كأنشح يسكرته عدالة الله ما بعنا وهي عدالة قر ما بعنا قر مدلك عيدا وبعضا قر مدلك بوليس وبعضا مركي أنشح درجت لكن مركي ضد كردن أنشح يشان
oo qof waliba anshaxiisa oo ilaaliyo ciidanna uma baahnin booliisna uma baahnin waxaas dhan looma baahno laakiin intii anshax oo liito oo anshax darro jirto waxaa waaye cadaaladaan raadinaynaa cadaaladii asaasi cadaaladna imaamaysa iyadoo anshax maqan yahay marka horta hore hadda waxaan haysanaa social media platform oo internetkan ku sheekaysan karnaa marka laba waa awoodaa inaad caytanto maanta oo dhan oo aad tiraahdo reer A iyo reer B annagaa saasa reer D iyo reer G maanta oo dhan inaad noocaas u daldalanto nawaad awoodaa inaad dadka wax saxa oo aan cay ku jiro dad waxaa la ninka weyn ma ciyaaro dad waaweyn aan nahay ilmo yar hadda soo koraya marka intaan cay iyo qabyaalad iyo laba barno waxaa ka qurux badan inay anaga nagu daysadaano aan wanaaga barno anaga wanaaga ka sheekayno ninka siyaasigaane kulli asaga hadaan oo arka anagoo anshax leh isaguna anagoo noo shaqeynaa laakiin markuuna arka anagoo anshax daraa asagana anshax daro wada habeen hore waxaan arkayay meelo mudaharaad ka dhacay iyo dhagxaan meel lagu jijibinayo marka laba arrin way jirtaa marka masawir noocaas aragto waa laba shay isdul saaran waa dhibaato iyo fursad haddaad dhibaatada aad aragto adaaba dhib kala laakiin haddaad fursad ka dhex aragto xalaad haysaa waxaana la yiraahdaa qofka dhibka uu kamid yahay ma xalli kariyo maanta marka haddii uu jiro dhib aslada Soomaaliya waa ka jira oo Soomaaliya dhib ay ku jirtaa aslada ma xalli karaysid ilaa adiga aad ka dhex baxdo horta adiga ka bax haddii dhibka aad u taqaan inuu qabyaalad yahay adiga qabyaalada ka bax haddii aad dhibtu u aragto inuu shaqo la'aan iyo buuqaas ay tahay adiga bal horta ka dhex bax berigaan yaryarayn waxaan la ciyaari jiray Soomaha alaabay hadda ciyaarkii hadda iPad la haystaa laakiin xilligeen alaabay la ciyaarayo gabdhahan waxbay karkarinayaan wiilkana asoo kulli alaabayda wax ka ciyaari jiray hadda marka dad waaweyn aan nahay moogtahay xaalad kasta Soomaaliya ka jirta intaadan ummadda afkaaga la gelin ayadoo alaabay miiska soo saaro waxaad soo saartaa dad siyaasi wax ka sheegirto siyaasiga inta soo istaaji haddaad qola kale wax ka caagag inta samaysatid wada dhigtid kan ka hadashay kan u hadal adiga kan adigu hadal kan adigu hadal wallahi waxaad ka maarmee inaad inta Facebook la soo istaagto dad aad macaaydo ama wax dhibaato u geysto marka horta hore istijaabi intaadan ummadda dhex imaan ishubi intaadan ummadda dhex imaan adduunyadan waxaa joogayda waa maalmo aad u kooban kulligeena waa ka yaaceena inaad ka yaaceedana waxaa daliil kuugu filan aw dadkii naga horreeyo dhan waa la laaday dad weliba hadda corona iyo balaa jira la dhahaye dadkii dad badan oo naqaano xilal soo qabtaan tacsidooda Facebook ka arkayna maalin kasto nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa wuxuu yiri asagoo magaalada ma ka dhex socdo wuxuu arkay nin ummadii oo dhan agta ka taagantoo fiirsanayso markaasuu wuxuu yiri nabiga ninkan muxuu ahaa saan loo wada fiirsanaa waxayna yaa rasuulullah ninkan abtirsiimaha oo xariif ku yahay oo abtirsiimaha dadku yaqaana reer hebel markaasuu nabiga wuxuu yiri aqoonta oo bartay uu yiri wax ay u tarayso malahan hadduusan bara lahaynna waxay u dhibi lahayd malahan marka waxaa jirto wax la yiraahdaa aqoon iyo waxaa jirto wax la yiraahdaa haaf aqoon waxaa waaye mid adduunyo aqri ku toosarto aqoona laakiin mid la yiraahdo nus aqoonta wax kala ma nus aqoonku waxaa waaye waa aqoon aan wax ku tareyn wax kale oo bara lahaydna ka hor istaagayso maanta marka abtirsiima barato oo tira anaga waxaana la yiraahdaa A B C D E F G D la suuq xola aad geyso yani waa aqoon aad ka baran kartayo runa oo saxod u baahneen baramayso indaad iska xirtay iyadana waxba ku tari mayso oo sanadba sanadka ka dambeeyo reer hebel iyo waxa hoos u sii dhamaanayaan waxay noqonaydaa wariyaa nolosha fahansan yaa fahansan nolosha yaa wax ummadii u sheegi karaayo ee noqomaysa yaa reer hebela waxa isku soo dhamaanayaan marka inta hadda goor tahay qof walba Soomaaliya sidaada horta mas'uuliyad ku saaranta oo waxaan wadaniga la yiraahdo yaa marka af Soomaaliga dhigaa waxa la yiraahdaa wadani waxa qofka yaqaano xaq uu dalka ku leeyahay iyo asaga xaq uu dalka ku leeyahay maanta marka qoladan waxa arkay xamar bajaajyada ku wadaan bajaaj ayagoo wadaan wadada marka waa laba seedna waxa la qolada inta ka imaanayda seedna waxa la qolada inta ka soconayso waxaad arkay kiisi buuxsama wuxuu leeyahay waxa uu sugay kii kale u galaa
marka xaqi dalka oo kugu lahaa aad ilaali weyda seedka aan ka baxda seed kale aad gasho haddii gaari carara aadna oo ku jijibiya police iyo insurance inta soo baxaan xaq ku dhacay male waayo markaaga horeba xaqi lagugu lahaa ama uu dalka kugu lahaa maadan ilaalin marka horta hore qof kastoo naga mid ah hadduu ku fikiro warani Soomaaliya xaqay ugu leedahay maxay tahay Soomaaliya xaqay ugu leedahay waxaa kamid ah kow jidka aan socdo yaana qashin ku tuurin wax qashina jidka yaana ku tuurin okay shacabkii dariska ka hadlamayno dhulka xaqu kugu leeyahay hawa saqayn okay qola kala asaas yeeshay adna saa yeel qoladaha kale dambigooda waxba kaama gelin waxaa laga yaabaa haddii dadku dhan waashaan mawaalne waa maya haddii ummaddu qalad sameeyda qasab maaha adna inaa qaldanto marka horta hore qof waliba naga mid ah bal ay idiin duceeyay bisha Ramadaan aan wada duceysane horta hore bal dalka xaqu kugu leeyahay garo dhowr wallahi waxaan hubaa haddaan kulligeen ku dhiirano Soomaaliga xaqa igu leh iyo dhulka xaqa igu leh inaan dhowro Soomaali oo dhan xaqayga isiinay laakiin markaan xaqi Soomaaliga dhowri waayo oo ciidda Soomaaliya xaqeeda dhowri waayo anna xaqayga wax ii dhicinaayo oo ii istaagayo biri ileeyahay qofka Soomaaliga xaqiisa loo doodo ma jirto marka wuxuu waa la kabiyo iskor saaran Soomaalidana waxay tiraahdaa meel dushiisa lama dhayo waxay ka wadaa meel nabar ku yaalo nabar ku dhacay hadaa dusha sarinta dhaqdo aad xirto nabarka wali waa bukaa maxaa la rabaa marka inaan qodo aan nadiifiso inaga marka baasheena maxaad sameynaa mar waliba qaybtaan koraan dhaqdhaqnaa inta meesha marka dhaqaydo wax ma noo hagaagayaan waa inaan baashi daadajinaa oo aanan dawlad iyo nin madaxweynaha inuu lagu mashquulinayo horta hore shakhsi annaga aan isku soo noqonaa in raawraari Cabdirasaaqow adiga maxaa ka qaldan naga daa qolada madaxweynaha naga daa qolada ra'iisul wasaaraha naga daa qolada xildhibaanada kuwii naga daa anigu maxaan qalad oo leeyahay aniga markaan is saxo adiga aad saxdo kan aad saxdo wala nin mas'uul oo qalad sameey karaay ma jiro laakiin marka annaga balooniga qaska aan dhax galno annaga buuq aan ku jirno dib aan ku jirno ma xalli karno ajnabi inta ku yimaado ku xalinayna ma jiro oo hada islaamna maanta dawladda dariska qarama midoob waxaas lagu sheegayo ta wax dana cid ka hala ma jirto marka annaga yaanu ku mashquulin dadkan xilka noo hay ilaaha barakeeyo qof xil haayo hada faayisa la daayo horta mujtamac ahaan inaga aan saxno baasha 5G aan ku fikirno 5G ahaan aan u imaano waliba maanta hada runta sheegno waalidiinteen waan ugu qaldameenniyo waayo kulli riwaayadan lagu jira ayaga nagaliin haday yacdii laayeen wax qabalahayn dadka anaga naga weynaa wax balaayaa ma dhacdeen laakiin kuwa naga weynaa way isqaba waayeen inagina hadda maryaha tuurno sidoodii oo kala u dhaqmoynaayo iyagiyaan u diidanahay inay maamulaan waalidkana aan ixtiraamno qof toosana la wadi karaaye horta hore anagii qaloocan wax ma toosi karno marka anaga bulsho ahaan horta hore aan is dhisno bulsho ahaan qof waliba xilka adiga ku saaran dalka ka saaran garo adiga balse oo dhismaha guryaha taa taqaanaan maxaa laga bilaabaa bulkeetiga marka la saaro derbi noqdaa marka hadaynu niraahdo dabaqa aan ka bilaabno waa wareer waana waxaa jirto niman saaxiibanahay iyo berdhood wuxuu igu yiri qadiyad Soomaaliya ka jirto igala hadlay wuxuu yiri AED saas waay waxaa yarniyo AED inta iska dayday adiga iyo walaalka Muxudiin ahri horta ma heshiiseen marka mid asaga walaalihiina Muxudiin la yiraahdo jiray ishaayaan oo aan kala maslaxeynay waxaa adii Muxudiin ma heshiiseen asur ma wallahi iyaga saas u leeyahay waxaa marka adii Muxudiin adoon heshiin iyo B arrimahooda dambiga kugu taana ka hadasho marka waxaad arkaydaa nin kasta wuxuu rabaa inuu hagaajiyo hadduu dhinacyadiisa fiiriyana asaa dhiiqa ku jiro ama gabadhiisa uu la dirsan yahay ama odageeday balay ku dabooda ama waalidkiisa oo caasi ku yahay ama kubadda ku la ciyaaro bulmo ku la dheelaa taaka ku dhuftaa marka adiga taa ay yaraysato dusha sarana la micnay noqonayda laakiin marka hoos ka wada saxno oo diintaba say diintaba lagama bilaabin qasab lagama dhigin hoos ka bilaabnay xaaskiisa Ali sallallahu iyo Abu Bakar iyo Ali iyo asxaabtiisa oo ka bilaabay marka baasha soo hagaajiyo Makka kadib Madiina wad waa ka adduunka dhan islaami annagana sidoo kale la rabaa lama rabo inaan dawlad dhisno lama rabo inaan idaacado inta waqti gelino aanu ka sheekeyno nin xil haayo waxa uu ku qaldanaa iyo waxa la yiraahdaa falsafada waxa la yiraahdaa dadkan Soomaalida qaar waxay wax u maleeyaan
falsafada cilmigii falsafada laba ay kala yihiin cilmigu waa run falsafadusa waxaa waa haddii ay saas ahaa lahayd haddii riwaayad beenaa waayo waxaa la yidhi marka wiil falsafad iyo waxaa soo bartay iyo wuxuu u tegay aabihii iyo hooyadii oo 2 saxan oo cuntaa cunaya markaasuu wuxuu yidhi hooyo yaabe falsafada aan soo bartaa idin tusaa yidhi maanta haye wuxuu 2 saxan aad cunaysaan iyaan 3 ka dhigaa 1 saxan oo saddexaad oo falsafadeedaan ku daraa aabihiisa marka wuxuu yidhi waayi haye aniguna kaygaan cunaayo yidhi islaantana keeday cuneedaaye saxanka saddexaad oo falsafada ku keenayda adiga cun marka horta wax falsafad la yiraahdo oo aan falsafadnimo loo fakiraa wax lagu xalinaa falsafad waa iska riwaayad falsafad ma baahna baashan waxay u baahan tahay inuu runta isku sheegno waxaan la yiraahdaa qofka raba inuu mujtamaca dhiso si wuxuu u hadlaa specific ama gooniya qofkii wuxuu leeyahay ka shaasaasa mooyaha saasa qofka raba inuu mujtamaca kala daadiyo wuxuu u hadlaa si guud wuxuu ku leeyahay siyaasiyiinta saas waaye ganacsatada asaas tiri wadaadada asaasa wadaadada iyo ganacsatada iyo waa wax guud waaye waxaa dhaanto cabdirasaaq asaasa faarax asaasa qofka markuu ku leeyahay inuu mujtamaca dhiso oo u baahan yahay laakiin qofka ka sheekaynayo dad badan suuqa dhaxdara ku dhahay waxaas dhan wax ka qaldan yihiin isaga waxayba ka go'nayn inuu mujtamac dhiso marka baasha laga daayay sida guud baasha waa daadajinayna hoos u soo dejinayna waxa leedahay marka hadlaydo horta waxaad ogtaa kaliya ka hadal hana sarbeebin oo waxa loo sarbeebaa marka dadka dul baxayso oo qof shisheeya oo ajnabiya arrimaha Soomaaliya marka laga xalinayo xogaa sarbeeba laakiin anagoo Soomaaliya in wax la sarbeebo qalad waa sarbeeb uma baahanin maanta waxaan u baahanahay qof jaahil ah nagu jiro kulligan waa diyaarsanahay kulligan aqoon aan leenahay kulligan waa fahanna nolosha marka waxa isku sarbeebeen runta isku sheegaynaa yaan umadeena loo kala sheegin wax qabiilaa jiro iyo waxaas been inay tahay waa wada ogaanay runta hadda waxay noqotay barnaamijyo aan Muqdisho ka dhigno New York kale Hargeysa aan ka dhigano Denmark ma dalka ugu fiican waana ka dhigi karnaa haddaan baashi sarbeebta laga daayo sheekadii boog yaro waxaa jira bari intaan qoray haddana aan kala cabsaday Soomaalida oo marka waxa la rabto balaa lagu soo daro boog waxaan u bixiyay been fakatay waxaan ku soo aruuriyay waxyaabaha beenta ee qaasatan aniga laga soo dhaadhacsiiyay ee aan u garawaayay waxay Soomaali tahay dadkii dhan hadaan fiiri waa ila mid oo waxa waaye beena fakada kulligeenu ku jiro oo hadda si baarto ad leedahay waxaan sideen u aaminano qof weyna marka nimeeyo qof waliba inta madaxa farti gelisid beenta fakato dhan oo kugu jirta bixi runta u soo jeeso runta waa lagu noolada nin weynana tahay ninka weyn ma ciyaarta jooji runta u soo jeeso waxaan rabay maanta inaan si live idin la hadlo si sharaf lahaad ii soo dhaweydeen waa idin salaama anigu kulli afarku wali iima gaarin qola idin kamid ah laga yaabaa inay afurtay inay baashi ciyaarta dheesha laga dhaafo sarbeebta laga daayo waxa kale la qarqarinaya la joojiyo runta la isku sheego waa mahadsantiin